dhalinyarada dalka jooga waxay ka cabanayaan badankooda oo jiro oo xaqiiq ah shaqo la'aan aad u baahsan. haddii mar shaqo la'aan jirtana waxaa yaraanaya dhaqaalaha. waxa qofku wax ku qabsan karana waa inuu dhaqaale helo. sidaas awgeed muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa habka aad u mari karto si aad u heshid shaqo oo aad u noqotid shaqaale, iyo sidoo kaleba habka aad lacag ku samayn kartid adigoona shaqaale ahayn. ku soo dhawo muuqaalka dhamaysa ilaa dhamaad. marka koobaad waxaan u kala qaadaynaa labo: in aad shaqaalenimo aad ku shaqaysid iyo in aad iskaaga u shaqaysid. midda koobaad oo ah in aad shaqaalenimo aad ku shaqaysid waxay kaaga baahan tahay in aad shaqo raadisid. shaqada sideed ku raadin kartaa? xagee loo maraa? dalkanaga waxyaabaha ka jiro dhammaanteen waa la soconnaa. habka shaqada lagu helana aad ayay u adag tahay ama usii adkaanaysaaba sanadahan dambe. waxaa yaraanayso in qofka shahaadadiisa iyo aqoontiisa in shaqo lagu siiyo asagoona lagu xiraynin waxyaabo kale. marka hore waxaa muhiim ah shaqooyinka inay laba nooc yihiin inaad ogaatid: kuwa la soo xayeysiiyo iyo kuwa aan la soo xayeysiin. kuwa la soo xayeysiiyo waxaa muhiim ah in aad ku xirnaatid goobaha lagu soo xayeysiiyo oo kala ah sida Qaran Jobs oo kale, Somali Jobs iyo website-yada kala duwan ee shaqooyinka lagu xayeysiiyo. waa inaad mar walba aad isha ku haysid shaqooyinka la soo dhigana. haddii aad u aragtid inaad ka bixi kartid ama qayb kamid ah aad qaban kartid oo aad isku kalsoon tahay in aad xareysatid oo aad dalbatid shaqadaas, aan kugula talin lahaa. shaqo walba waxay leedahay mas'uuliyad looga baahan yahay qofka inuu ka soo baxo. mas'uuliyadahaas oo dhanna way yar tahay dadka soo wada bixi kara. iska xareyso ha ka niyad jabin, mar walba xareyso. waa ogahay waad ka caajisaysaa markii 10 intaad xareysid lagu soo jawaabi waayo, balse haddii aad wadid oo 10 kale aad xareyso waxaa laga yaabaa in qaar kamid ay kuu soo jawaabaan. nooca kale ee shaqadana waxay tahay in ay jiraan shaqooyin aan la soo xayeysiinin oo qofkii yacni ka shaqayn lahaa automatic loo geeyo. taas waa inaad ogaataa. ayadana shaqooyin aan la soo xayeysiin ayaa jiro. sidee ku heli kartaa midaas? waxaa lagaaga baahan yahay inaad dhistid wax la yiraahdo network-gaaga aad ayuu muhiim u yahay. network-gu waa dad kaa caawin kara fursadaha jira in ay kaa saacidaan. haddii noqon lahayd fursado shaqo iyo kuwa kaleba, waa in aad baratid dad yacni meelaha aad rabtid inaad ka shaqaysid. haddii noqon lahayd wasaarado, haddii noqon lahayd hay'ado, waa in dad ka shaqeeya aad la saaxiibtid oo aad baratid. haddii dad madaxa aad baran kartid kaba si fiican oo jaanis aad u heli kartid. dadka madaxda ka ah wasaaradaha, dadka madaxda ka ah hay'adaha haddii aad la saaxiibto dabcan fursado badan ayaad helaysaa. qaarkood haddii aad intaad waqti la qaadatid oo aad la fadhiisatid aad oga sheekaysid, yacni intaad kafee wada dalbataan aad oga sheekaysid waxyaabaha qabatay shaqooyinkaaga, yacni xirfadahaaga, haddii aad soo shaqaysay khibradaha aad leedahay, si uu oga warhayo qofka aad tahay, isla markaana haddii berri ay fursad soo baxdo lagula soo wadaago. marka network aad ayuu muhiim u yahay. dadka familka oo kale laftirkooda haddii kaa saacideyn karaan ayadana waa fursad kaloo fiican. waxayna yidhaahdaan sanadkan shaqooyinka ma ahan maxaa taqaanaa, ma ahane waa yaa taqaanaa. marka haddii qaabka wax lagu heli karaba ay tahay yaa taqaanaa laftirkeeda, ayadana waa in aad raadisaa. waa in dad aad baratid mas'uuliyiin ah, dad macquul ah, dad kaa saacideyn kara in ay fursado ku siiyaan si network-gaaga uu u noqdo mid fiican oo hadhowdii haddaad la saaxiibto ciyaalka xaafadda maxay kaa saacideyn karaan waa waxba. midka kale oo muhiimka ana oo kaa saacideyn kara shaqadana waa aydan inaad resume-kaaga ama CV-gaaga aad qurxisid. CV-gu waa in skills-kaaga, xirfadaha aad taqaanid, shaqooyinka aad soo qabatay, background-kaaga aqoonta, inta aad wax soo baratay, waxyaabahaas oo dhan waa in aad ku soo qortaa. balse waxaa kaloo lagaaga baahan yahay in CV-gaaga uu noqdo mid la qaadan karo. waa inaad la tashataa dadka already shaqaynayay oo ka shaqeeya meelaha aad rabtid inaad ka shaqaysid. hay'ad haddii noqon lahayd, wasaarad haddii noqon lahayd, goob kastoo aad rabtid dadka ka shaqeeya weydii, walaalow CV-gayga waa kana, bal iga fiiri maxaa ka dhiman, maxaan ka bedelaa. CV-yada la qaato waa noocee? haddaad online-ka ka baari kartid ayadana ka baar. sidoo kale in CV-ga laftirkiisa aad ku qortid waxyaabo been ah ayadana way kaa saacideyn kartaa inaad shaqo haysid. tusaale khibrado ama shaqooyin aad ka soo shaqaynin ood ku qoran kartaa si ay kaaga saacideyso. inkastoo beenta ay dambi tahay, balse hadduu CV-gaaga aad daacad iska dhigtid oo waxba aadan ku qorin, iyo haddii aad waxyaabo aad samaysay iyo qaar kaloo aad samayninba, laakiin haddii wax lagaa weydiiyo hadhood aad ka jawaabi kartid haddaad ku qoratid, dabcan ayadana waxbaad ku helaysaa. ma dhiirigelinayo inaad been sheegtid, balse waa sida ka jirta caalamka ayaan kula wadaagayaa ee la sameeyay markii CV-yada la qorayo. portfolio oo online ah samaysa ayadana. website haddaad samaysan kartid oo portfolio ah oo xirfadahaaga, projectiyada haddaad samaysay, waxyaabaha aad qabatid, waxyaabahaas oo dhanna portfolio ama website aad ku soo bandhigto ayadana haddii aad samaysatid aad ayay kaaga caawinaysaa. labadaas haddaad isku darsatidna wax fiican ayaad. midda kale waa in aad isu diyaarisaa interview-yada. markii shaqo lagu qaato oo lagu dhaho shaqadan waan ku qaadanay, interview ayaa lagugu yeeraya. dabcan shortlist wax la ayaa la soo geliyaa dadka. shortlistkaas markii lagu soo geliyo interview-ga waaye meesha go'aanka looga gaaray in shaqadan lagu siiyay in kale. waa hadday tahay shaqo daacad ah, interview-gaagana ha noqdo mid ay ka muuqata kalsooni. kalsoonida waa shayga ugu muhiimsan. kambaniga su'aalaha interview-ga la weydiiyo way jiraan baar
dadka ka shaqeeya meelahaas weydii su'aalahaas inay ku siin karaan ama ay heli karaan ama ay fikrad un xataa ay ku siin karaan. haddii online ay tahayna online-ka waa laga heli karaa su'aalaha interview-ga company-gaas uu bixiyo, dabcan hadduu yahay company international ah. marka su'aalaha la isweydiiyo laftirkooda sii practice garee. company-ga waa inaad laftirkiisa baaritaan aad ku samaysaa background-kiisa, sababtoo ah su'aal ayaa lagaa weydiin karaa laftirkiisa. hadday noqon lahayd hay'ad, hadday noqon lahayd company, waxaa lagu weydiin karaa maxaan qabanaa, maxaan ku fiicannahay, maxaan uga duwannahay kuwa kale, haddaan shaqadan ku siino maxaa kusoo kordhinaysaa company-ga ama hay'adda. waxyaabahaas oo dhan su'aalahaas oo generic-ga ah laftirkooda oo mataqaanaa oo meel walba la isku weydiiyo waa in laftirkooda aad fahantaa sida looga jawaabi karo aad barataa. haddaba haddii aan u gudubno marka qaybta labaad ee ah in aad adiga aad iskaaga aad u shaqaysatid, waxaa muhiima marka koowaad in aad baratid xirfad skills inaad yeelatid oo aad baratid ayaa qasab ah si aad iskaaga aad ugu shaqaysatid. xirfado cusub oo badan ayaa jira oo aad baran kartid sida graphic design-ka, video editing-ka, website-yada sida loo sameeyo web development-ga. waxyaabahaas oo dhan waxaa muhiim ah in aad qayb ka mid ah aad baratid. hal xirfad haddii aad focus ka saartid intaas ayaa kaa badan. qasab ma aha inaad 5 xirfad aad baratid hal mar. maskaxdaada waxaa u fiican in aad hal xab kaliya aad focus ka saartid, halkaas ayaad meel ka keeni kartaa. marka hal xirfad aad master garaysid, waxaa lagaa rabaa marka in aad shaqo aad ku raadisid. online-ka ayaad iska diiwaangelinaysaa, goobaha freelancing-ka wax la yiraahdo laga sameeyo ayaad iska diiwaangelinaysaa sida Upwork, Fiverr iyo kuwa lamid ah badan. goobahaasna xirfadaadii ama skills-kaagii ayaad uga shaqaysan kartaa oo laga soo dalban karaa, kadibna adeeg ayaad bixinaysaa, lacag ayaadna ka samaynaysaa. freelancing-kaas waad ku shaqaysan kartaa, adiga iskaaga u shaqaysan kartaa. oo website intaad samaysatid waa dhihi kartaa waxaan bixiyaa service-yadan, qiimahooda waa intan, waxaan ayaan kuu samaynayaa, kadibna company-ga ama shakhsiga ama qofka rab inaad u adeegtid uu ka soo dalbanaya, waadna u samaynaysaa, saas ayaadna lacag ku samaynaysaa. waxaa kaloo samayn kartaa waxa la yiraahdo content creation oo ah inaad muuqaal samayn aad bilowdo, YouTube-ka oo kale, Facebook-ga oo kale iyo goobaha kale ee internet-ka oo dhan lacag looga samayn karo. markii la soo gudbiyo muuqaalada waad uga samayn kartaa lacag. vloggan ayaad bilaabi kartaa, muuqaalo mataqaana waxbarasho ah ama aqoon kororsi ah ayaa dadka aad u samayn kartaa. wax walba aad is leedahay dadka way u faa'iideynayaan oo way anfacayaan, adigana aad jeceshahay inaad samaysid ayaad samayn kartaa, lacagna waad ka heli kartaa. balse wax walba waqti ayay qaadanayaan oo ma ahan wax markiiba lacag laga helayo oo dhaqso aad ku taajiri kartid ma aha. waa inaad u samirtaa marka koowaad, kadib ay macnaha meero dhali doontaa oo aad wax ka faa'iidi doontaa. content creation-kuna waa wax aad u fiican sida aad ku bilaabi kartay waxyaabahaas oo dhanna. muuqaal ayaa jira aan ka sameeyay, muuqaalkaas inaad soo daawatid ayaan kugula talin lahaa si aad wax badan aad uga fahantid content creation. hababkaas ayaad ugu shaqaysan kartaa iskaaga adiga oo aanan cid bini aadan ah aanan shaqo weydiisan. waxaa muhiima marka in shaqana aad raadisid, xirfadna aad baratid. haddii aad shaqada aad raadinaysid aad heshidna alxamdulillah, xirfadahaagana sii dhigo oo sii baro oo yacni ha iloobin in aad mar walba xirfadda ay meel ku taalo oo aad isku hubaysid oo backup ay ku noqoto. shaqada laftirkeeda ayaa laga ceerin karaa, marka berri waa inaad meel aad ku soo laabatay ay jirto oo xirfad aad leedahay. xirfaduhuna aad ayay u fudud yihiin inaad baratid haddii aad waqti aad gelisid. online-ka ayaad ka baran kartaa. in shaqaale la noqdo waa wax fiican oo waxay kaa saacideynaysaa waxyaabo aad u badan, balse in aad sugtid kaliya in aad shaqaale noqotidna waa caqabad kale oo adiga kaa hor istaagi karta horumar badan oo aad gaari lahayd haddii aad xirfad yeelad. waxaan rajaynayaa in aad fahantay qodobkan ka hadlay. muuqaalka like saar, page-kana follow dheh, channel-ka subscribe saar, muuqaalka la share garee asxaabtaada si ay uga faa'iidaan ayagana. fikirkaaga nagula wadaag qaybta commentiga. intaan ku kulmayno muuqaalka mid ka xigan waxaan kaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.